Salaamullaahi calaykum daawadayaal kusoo dhawaada falanqayntii kulankii caawa dhex maray kooxaha Manchester City iyo Arsenal. Markii uu garsooraha ciyaarta City sidaa u afuufay, wax badan kumay qaadan kooxda Citizens inay la timaado goolka koowaad, waxaana darbad xoogan la beegsaday goolka Arsenal. Laacibka reer Belgium ee Kevin De Bruyne kaasoo shabaqa taabtay daqiiqadii labaad ee ciyaarta. De Bruyne oo sii wada bandhigiisii wacnaa ayaa daqiiqadii 15aad ka caawiyay saaxiibkiisa Raheem Sterling inuu u dhaliyo kooxda Man City goolka labaad. Kooxda martida ahayd ayaa 2 gool hoggaanka ku qabatay iyadoo maamuleysay ciyaarta inteeda kale. Wiilka reer Belgium ee Kevin ayaa mar kale shabaqa soo taabtay daqiiqadii 40aad isaga oo caawin ka helay Diamond-ka u soo kacay Man City ee Phil Foden. Waxaa sidaasi lagu kala nastay haafkii hore ee ciyaarta. Markii la iskugu soo noqday haafkii labaad, labada kooxoodba waxay la yimaadeen fursado noqon kara goolal, laakiin ciyaarta ayaa kusoo dhammaatay 3 gool iyo waxba oo ay guusha ku raacday kooxda martida ahayd ee Sky Blue. Waxyaabihii laga diiwaangeliyay kulankan waxaa ka mid ahaa kooxda Man City ayaa noqotay kooxdii labaad ee Arsenal kaga badisay gurigeeda 2 ciyaar oo isku xiga 3 gool iyo eber. Dhanka kale, weeraryahanka reer Gabon ee Emerick Aubameyang ayaa 8 jeer oo quraata taabtay ciyaarta haafkii hore, isaga oo ku taabtay dhanka goosha Gunners. Da'yarka Phil Foden ayaa noqday beddelka saxda ah ee kabtanka Man City David Silva, isaga oo qulubta taageerayaasha Man City ilowsiiyay kabtankooda. Daawadayaal, waxaynu halkaa ku soo afmeeri doonaa falanqayntii kulankii caawa dhex maray kooxaha Sky Blue iyo Arsenal.